daawadayaal ku soo dhawaada wararkii warshiil TV qodobada ugu doorka roon wararkaanu idin haynana waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo si buuxda u joojisay dhammaan duulimaadyadii Kismaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shiriif oo weerar culus ku qaaday madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre kadib markii shalay laga joojiyay inuu ka dhoofo garoonka magaalada Muqdisho isagoo oo doonayay inuu ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha Jabuuti oo ka digtay arrin culus oo Soomaaliya uga soo socota dhanka kenya.Cabdiraxmaan oo isaguna amisom la xiriiriyay xayiraadii la saaray madaxweyne shiriif daacish oo dagaalyahano cusub ku soo bandhigtay gobolka bari daawadayaal kuwaasi waa qaar kamid ah qodobada warkaanu idinku hayna haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in muddo 3 maalmood joojiyay dhammaan duulimaadyadii tagi jiray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maamulka hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya ayaa shaacisay in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 23 Sebtembar ilaa 26 bishan la hakiyay dhammaan diyaaradaha tagaya ama ka imanaya magaaladaasi sidoo kale hay'adda ayaa go'aankani ku wargelisay shirkadaha duulimaadyada ee dalka gaar ahaan kuwa isticmaala garoonka magaalada Kismaayo arintani ayaa waxay dawladdu uga gol leedahay sidii ay u baajin lahayd mas'uuliyiinta ka qayb galaysa xafladda caleemasaarka ee Axmed Madoobe dawladda dhexe ayaa gabi ahaanba ka hortimi doorashadii dib loogu doortay madaxweynaha Jubbaland taasi oo dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaasi maalintii shalay ayay ahayd markii dawladda federaalka ee Soomaaliya markii dawladda dhexe wafdi uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shiriif Sheekh Ahmed ay u diiday inay u duulaan dhanka magaalada Kismaayo madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shiriif Ahmed oo go'dhoweed shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa arrin nasiib darro ku tilmaamay tallaabadii shalay ay dawladda federaalka ay dawladda Soomaaliya ugu diiday inuu ugu dhoofo magaalada Kismaayo Sheekh Shiriif ayuu qorshihiisu ahaa inuu Kismaayo kaga qayb galo xafladda caleemasaarka ee Axmed Madoobe oo maalinta bariya halkaasi ka dhacaysa iyadoo dawladdu ay hore u sheegtay inaysan aqoonsaneyn natiijada ka soo baxday doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo waxaan aaminsanahay in muwaadin kasta oo Soomaaliya uu xaq u leeyahay inuu u safro halka uu doono waana nasiib darro in dawlad sharciga loogu doortay ay ku kacdo wixii ay aniga shalay igula kacday oo ahaa sharci darro ayuu yiri Sheekh Shiriif madaxweynihii hore ayaa ka warramay marxaladihii ay soo martay dawladnimada Soomaaliya isagoona xusay in dawladdu aysan dawlad noqon karin haddii aysan ilaalin dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala waxa la yaab leh in qof Mareykanka ka yimi oo leh 30 sano ayaan soo joogay waxa uu xusay in dawladda Soomaaliya laga sugay 24 saac la soo dhaaf in raaligelin buuxda ka bixiso qaladkii ay isaga ka gashay balse nasiib darro arrintaasi ma dhicin madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa dhinaca kale sharci darro ku tilmaamay xanibaadda dhinaca duulimaadyada ee dawladda ay saartay magaalada Kismaayo waxaanu xusay in shacabka magaaladaasi ku dhaqanay xaq u leeyihiin inay u dhoofaan halka ay doonayaan waxa uu dawladda ku eeday inay shaqo ka dhigatay dabagalka siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo ayna meel iska dhigtay waajibaadkii ka saarnaa u adeegida bulshada Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan warsame ayaa si adag uga hadlay is-hortaaga lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shiriif Ahmed oo shalay laga celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda Kismaayo si uu uga qayb galo xafladda caleemasaarka ee Axmed Madoobe Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu si xooggan u cambaareynayo sida loola dhaqmay Sheekh Shiriif Sheekh Ahmed oo uu sheegay in halgankiisii uu ka soo bilaabay soo deynta wiil ardaydiisa kamid ah oo xorriyadiisa laga qaaday isla markaana ay maanta joogto in isagii xorriyadda socodka laga qaado waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu intaasi raaciyay in wixii dalka ka dhacay mas'uuliyadiisa qaadaysa amisom maadaama ay ka aamusan tahay waxa dhacaya iyadoo la adeegsanayo awoodeeda war-saxaafadeedkaasina waxa uu qornaa sida tan waxaan si xooggan u cambaareynaa xayiraada safar ee loo geystay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shiriif Sheekh Ahmed waftigiisa iyo shacabkii maanta Kismaayo u dhoofayay Sheekh Shiriif waxa uu halgankiisa siyaasadeed ka bilaabay soo deynta wiil ardaydiisa kamid ah oo xorriyadiisa laga qaaday maantana
waxay joogtaa in isaga xorriyadda maantana waxay joogtaa in isaga xorriyaddii socodka laga qaado dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 12 ayaa damaanad qaadaya xorriyadda isu socodka dowladnimaduna dastuur ayay ku dhisan tahay ku tumashada dastuurkuna waa khiyaamo qaran madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre amarkooda ayaa lagu laayay shacabkii Baydhabo doorashada ay amisom tartamayaasha qaarkoodna ay xabsiga dhigtay dadkii ka dhiidhiyana ay leysay ayuu farmaajo caleemasaarkiisii camirtay dalka kaligood ma laha dastuurkana kama weyna hadiise ay u qaateen in dulqaadku yahay daciifnimo isxakamayntuna tahay itaaliyari tanaasulkuna yahay taagdari dhabtii wadada ay ku socdaan waa mid hore ka xiran xisbiga wadajir ayaa aad u cambaarayay tallaabada ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay shalay toole ku joojisay safarkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo dowladda Jabuuti ayaa wali wada dadaalka ay ugu jirta sida ay u hanan lahayd matalada kursiga Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii dhawaan loolan ay kala kulantay dalka Kenya wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa sheegay in Kenya aan lagu aamini karin kursiga ay u tartamaysay golaha ammaanka maadaama uu yiri uu khilaaf xooggan kala dhaxeeyo dalka Soomaaliya oo ay ku muraysan yihiin badda Soomaaliya wasiir Maxamuud Cali Yuusuf oo safiirada ajaanibka ee dalkiisa ku sugan kala hadlay arrinta la xiriirta musharaxnimadooda kursigan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ayaa sheegay in Jabuuti ay u baahan tahay codadka dalalkaasi waxaanu dhanka kala sheegay in haddii Kenya ay kursigaasi hesho ay saameyn ku yeelanayso muranka kala dhaxeeya Soomaaliya isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi raaciyay in Kenya aan waqtigani lagu aamini karin amniga gobolka ma jirto wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay xukuumadda Nairobi oo ay arrintaasi uga jawaabayso hayse yeeshee waxa ay Kenya ku naaloonaysaa taageerada dalalka midowga Afrika si ay ugu tartanto kursiga ay damacsan tahay inay golaha ammaanka ugu matasho qaaradda Afrika codbixin ay bishii August sameeyeen dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika oo ka dhacday magaalada Addis Ababa ayay dowladda Kenya heshay 37 cod halka Jabuuti ay heshay 13 cod oo kaliya laakiin Jabuuti ayaa wali ku adkaysanaysa inay tartanka la sii wado Kenya marka la isla tago golaha amniga ayna isku dayeysay inay ka guuleysato kooxda Daesh gaar ahaan faraceeda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay dagaalyahano cusub oo tababar ku qaadanaya dhulka buuraleyda ee galgala ee gobolka Bari dagaalyahanadan oo isugu jira Soomaaliya ajaanib ayuu Daesh sheegtay inay ka mid noqonayaan ciidankeeda ka dagaalamaya gudaha Soomaaliya sawirada laga soo qaaday dagaalyahanadani oo afku u duuban yahay ayaa muujinaya iyagoo tababar ku qaadanaya mid kamid ah xeryaha kooxda Daesh oo lagu magacaabo Daud al-Somali taas oo loogu magacdaray tababar hore loo dilay oo ka tirsan kooxdan Daesh ma shaacin tirada dagaalyahanada tababarkan ku qaadanaya dhulka buuraleyda ah ee Puntland marka laga reebay inay ka qayb qaadanayaan dagaalka ay wadaan dhawaan Mareykanka ayaa shaaciyay inay sare u kacday awoodda kooxdan oo inta badan weeraro xooggan ka fulisa dhawaan Mareykanka ayaa shaaciyay inay sare u kacday awoodda kooxdani oo inta badan weeraro xooggan ka fulisa qaybo badan oo kamid ah Soomaaliya daawadeen intaasi ayaanu ku soo afmeerinaa warkeeni guud ahaan waxaanu idinkaga tagaynaa intaynu ku kulmi doono warka xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh